bismillahi raxmaan raxiim weli waxaan ku guda jirnaa exercise 1.1 page 7 waxaan kasoo shaqeynay a b c aan ka shaqeynay d hadeerta galena insha allah d waxaana la siiyey cos 7 by over 2 alif aana la siiyey marka waxaan sarifeynaa cos 7 by over 2 alif meesha ay ka timaaday waxaan leenahay cos 7 by oo loo qeybiyo 12 waxay ka timid cos aan leenahay barakada furena 3 by over 2 alif oo lagu daray 4 by over 2 alif marka meeshaan joogno waa isku yareereynayna 3 u qeybi waa hal 3 u qeybi waa 4 halkaan hadaan dhan 4 qeybi waa hal 4 u qeybina waa 3 soo marka waxaa nooga soo baxaysa meesha way noo noqonaysaa cos 7 by over 2 alif waxay ku wala mid tahay leedahay marka cos by over 2 alif oo lagu daray cos by over 4 oo lagu daray cos by over 3 aan leenahay soo marka waxay u egtahay hadeerta markaa fiiriso cos a plus b u egtahay waa furfurayna waxaan leenahay waxay noqonaya cos by over 4 oo ku dhacsan cos by over 3 laga jaray sin by over 4 oo ku dhacsan sin by over 3 ayay noqonaysaa marka meeshaan joogno mid walba qiimaheedaan gelinayna marka cos by over 4 waxay u dhigantaa cos 45 degree haddaa calculatorkaada gelisana qiimaheeda saxda ah wuxuu noqonaa markaa radical 2 over 2 oo ku dhacsanaa leedahay cos by over 3 na waa cos 60 degree calculatorkaaga haddaa gelisana wuxuu noqonaa qiimaheeda saxda ah half oo laga jaray aa leedahay sin by over 4 qiimaheeda saxda waa radical 2 over 2 oo ku dhacsan aa leedahay haddana sin 60 oo qiimaheeda saxda uu yahay radical 3 over 2 marka meeshaan joogno isku dhufo labadan sareeya waa radical 2 loo qeybi 4 dheh laga jaray labada kale isku dhufo radical 6 oo ayadana loo qeybi 4 sidaa darteed waxaa leenahay hal 4 ka qaado 4ka markaa ka qaadan labadan sareeya ma kala jarmaayaan waa radical 2 oo laga jaray radical 6 ayay noqonaysaa marka meeshaan joogno waxaan leenahay marka cos 7 by over 2 alif calculatorka haddii la geliyo qiimaha saxda soo bixi doona waxay noqonaysaa radical 2 laga jaray radical 6 oo loo qeybiyey 4 ayay noqonaya marka la socod wanaagsan insha allah.